jamhuuriyadda iskad u dhawaaqday madax banaanida ee Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay in Soomaaliya ay kala hadasho goob fagaare caalami ah oo ay ku kulmaan waxaana ay sheegtay in wada shaqaynta la sheegay inay tahay in si siman ay labada dhinac u wada hadlaan nabadda iyo daris wanaagana la dhowro hadalkan ayaa waxa uu imanayaa xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya ay bogaadisay hadal laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ahaa in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu aqbalay inay si dhow u wada shaqeeyaan Soomaaliya haddaba si aanu faahfaahin dheeraad uga helno mowqifka Soomaaliland ayaa waxaanu khadka telefoonka kula xiriirnay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo aan markii hore weydiiyay waxa Biixi iyo Abiy Ahmed ay ka wada hadleen madaxweynaha wafdigiisa iyo dawladda federaalka Itoobiya waxay ka wada hadleen arrimo badan oo mandaqada geeska Afrika iyo xiriirka labada dal ee Soomaaliland Itoobiya quseeya dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo dhaweynaysaa lana qabtaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed in geeska Afrika noqdo meel nabada dalalka geeska Afrikana iyadoo mid walba la qadarinayo jiritaankooda dhuleed iyo madax banaanidooda qarannimo inay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo horumarka mandaqada geeska Afrika ee shirka dhexmaray wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ra'iisul wasaaraha Itoobiyana waxa lagu lafaguray islaana gartay in arrimaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu xalliyo wada hadal iyo fagaare caalami ah lagana fogaado wax kasta oo keeni kara colaado cusub iyo xasarado hor leh oo ka curta gobolka geeska Afrika gaar ahaan dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay hore u dhexmareen colaado lagu hoobtay jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku asaasantay go'aan shacbi waxaanay tixgelinaysaa daris wanaagga iyo nabad ku wada noolaanshaha wadamada dariska geeska Afrika iyo kuwa beesha caalamka balse wada hadal iyo nabad waarta waxay ku imanaysaa Soomaaliya oo ka waantooda been abuurka cadaawada iyo colaada ay u hayso shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo horumarkooda bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa lagu cadeeyay in madaxweyne Muuse Biixi uu sheegay in wada shaqayn dhow uu la yeelan doono Soomaaliya marka wada shaqaynta maxay tahay walaal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed kulankooda qoraalka ay sheegeen waxa weeyaan wada hadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya hore uga dhaxeeyay ee muddada dheer hakadka ku jiray inuu noqdo wada hadal ilaama oo goob fagaare caalami ah oo wadamo badan oo beesha caalamka ay goobjoog ka yihiin oo aan ku iyaga amaan dawlad kulnayn aan ahayn dadka qaar waxay leeyihiin Soomaaliland meeshii hore ay ka soo dabacday oo haatan waxay ogashahay in waxyaabo badan ay ka tanaasusho waxa la wax ka jira ma jiraan arinta oo beeninayna annaga jamhuuriyadda Soomaaliland waa muqaddas koonistaageeduna waa go'aan shacbi laba dal iyo laba dawladood oo geeska Afrika ku wada yaala oo darisnimo laba dawladood oo ka dhaxeeyo kaliya un baa naga dhaxeeyo Soomaaliland go'aankeeda iyo koonistaageedu maaha wax marna la soo dabciyo marna la adkeeyo waxa weeyaan waa go'aan shacbi jiritaanka qarankan 27 jirsaday oo qaangaadhina marnaba gorgortan ma gelayo waxa kaliya Soomaaliya naga dhaxeeyaan ka wada hadli karaan waxa weeye sidii aan u kala noqon lahayn laba dawladood oo beesha caalamka ka wada tirsan waxa kale oo ku jiray heshiiska ama qodobadii laga wada hadlay in Itoobiya iyo Soomaaliland ay dekado yeeshaan marka dekadahaas xagee laga dhisaya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudihiisa badda iyo xuduudihiisa berriguba way qorayeen wayna qeexan yihiin wadamada geeska Afrika iskaashigooda iyo isticmaalka dekadaha Suudaan Djibouti Somaliland dalka Itoobiya waa dalaan bad lahayn oo Suudaan oo isticmaala Djibouti oo isticmaala Somaliland oo isticmaala waxa weeyaan xiriirka ganacsigu waxa weeyaan xiriir furan marka dekada la wada dhisanayo oo ma jiraan dekada Somaliland way dhisan yihiin waana dhul la yaqaano oo Somaliland leedahay ku yaalaan marka wixii xoojinta xiriirka ganacsiga iyo isu socodka iyo waxisweydaarsiga wax kala iibsiga ku saabsan waa heshiisyo soo jireena oo Somaliland iyo Itoobiya waligood ka dhaxeeyay kuwaas in la sii dirdirgeliyo mooyaane ma jiro heshiis kale oo gooni ah oo gaar u khuseeya arrimahaas Maxamuud Warsame Jaamac afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka goorsi horeysay ugu waramayay